السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Juba Institute of Professionals. وكورسنا بالانترميديت English course. وأنا بوجا إن 4000 Essential English Maths Book 1 Lesson 32 page 99 أيوة نكو قرية هاي. هذا عشر كنا وحكم بالأمانة gentleman. Gentleman وحالا نين ونحسن خيارة. A gentleman is a nice man ونين ونحسن. My grandfather أوغي is a kind ومن حدث بدن and helpful gentleman وأنا عاونات بدن helpful قفك عاونات بدن كلا عاوية gentleman. أنا كلام برينا وحويان hidden وحقر صومالنا. Hidden means not to be easily noticed. وحاسفه الله دريم كريم الله الكريم or too hard to find أما أدقت إن لهرب. The hidden camera ده قرصونات recorded waxay duubtay everything wax kasta in the parking lot oo ka dhacay meesha baabuurta lagu bakirto. Parking lot waxa la meesha baabuurta lagu dhigto. Maybe lacala way maybe lacala wax dhici karo. Maybe is used waxa loo isticmaalo to show that something is possible inay suurtagal tahay or maybe true inay run tahay. If I focus hard enough haddaan si aad diiradda u saaro maybe I can come up waxaan la imaan karaa with the right answer jawaabta saxda. If I focus hard enough haddaan aad diiradda u saaro su-aashani maybe I can come up waxaan la imaan karaa with the right answer jawaabta saxda. Officer waa sargaal. Officer maxaa la sargaal. An officer is a leader waa hogaamiye in the army ciidanka. The soldiers askartii followed waxay raaceen the orders amarka of the officer sargaalka officer. The soldiers followed waxay raaceen the orders amarki of the officer sargaalki amarkiisa raaceen. ereyga waxa original waxa la wixii mataqaana asliga aha asalka aha. Original waxa weeyaan asal ah ama wixii saxda ah ama copy ee runta ah la original aan copy ahayn. If something is original shayga original it's the first one of that thing waxaas wixii ugu horeeyay ee la soo saaray way. This is the original painting waa sawirkii ugu horeeyay saxda ah of the Mona Lisa ee waxa loo yaqaan Mona Lisa. ereyga waxa weeyaan pound hadda waa verb waa ficil waxa markii la jajabiyo ama la shiidaa waxa la pound. sidoo kale markay noun tahayna waxa la lacagta sterling gariga Great Britain pound wala Great Britain pound ama lacagta Ingiriiskana pound wala dhaha. sidoo kale halbeega rodol waxa la halbeega pound la dhaha tusaale hadda dhado 100 pound hadda dhado macnaheedu waxa weeyaan waxaan ahay 50 kiilo camal ayaan ahay ka dhigantay. marka pound waa halbeega Ingiriiska. sidoo kale lacagta Ingiriiska waa pound waa halbeeg la isticmaalo oo wax lagu cabirto oo u dhiganto nus kiilo camal dhiganto. sidoo kale pound lacagta Ingiriiska noqota. laakiin hadda verb markay ficil tahay waa jajabin wax marka la jajabiyo ama la shiido. To pound something is to hit it many times oo marka aad u garaacdo with a lot of force xoog marka u garaacdo way. He pounded the nail wuxuu la dhacay musbaarkii with the hammer buriski. He pounded wuxuu ku garaacay the nail musbaarkii with the hammer buriski wuxuu garaacay buris wuxuu garaacay. Process waxa la waxa weyn waa nidaamka loo maro marka wax la sameeyo. Process maxaa la waa nidaamka loo maro ama tilaabooyinka loo maro marka wax la sameeyo. A process is the steps waa tilaabooyinka to take a qaaday to do something marka wax la sameeyo. Making a cake marka cake la sameeyo is a long process waa process dheer ama waa hanaan dheer. ereyga barayna waxa publish waa daabicid waa verb publish. To publish a book marka daabacayso is to get it printed waa in la daabaco. Get it printed waa in la daabaco and ready to sell oo diyaar u yahay in la iibiyo. The company shirkadu publishes waxay daabacaan daily newspapers wargeysida maalinlaha. Daily newspapers wargeysida maalinlaha ayay daabacaan. Theater waxa weeyaan theater waa theater waa meelaha ruwaayadaha lagu soo bandhigo. Theater baa la sameeyaa theaterka qaranka waa maqashay. Theater wala sidoo kale meelaha wax lagu qalana ayana waxa la theater saalada la wada saalada qalinkana theater wala saalada qalinka. meelaha dagaaladu ay ka dhacaan furunta la theater wala dhigana. A theater is a building waa dhismaha where you watch plays aad ruwaayadaha ku soo daawato shows iyo bandhigyada and movies iyo filimada. We went to the theater waxaan aadnay theaterka to see a play saan soo aragnay ruwaayad. Wealth waa hanti badan. Wealth maxaa la waa hanti badan. Wealth is a large amount of money waa lacag badan. One of the most important things waxyaabaha ugu muhiimsan to some people dadka qaarkood
is wealth hanti ma dadka qaarkood ka fikiraan aad iyo aad baad mahadsantihiin please read the short story akhri short storyga akhri read the short story read please read the short storyga akhri inshallah short storyga akhri please read the short storyga akhri and do the exercise 7 on pages 100 101 and 103 aad iyo aad baad mahadsantihiin